Goorsheegtu waxay ku beegneyd abaarakowdii iyo 20 daqiiqo markii xarunta warqabadka TV ee magaalada Hargeysa uu soo gaadhay warka sheegaya mudaharaad salmiya oo ka aloolsan afafka hore qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Waxaanu xirxiranay qalabkayagii waxaanu u jihaysanay jihada ay nagaga beegneyd madaxtooyadu wadada furneyd awgeed waxaanu daqiiqada yar oo kooban ku gaadhnay halka mudaharaadku ka soconayay oo ahayd afafka hore qasriga madaxtooyada Soomaaliland, taasoo ay isugu soo baxeen macallimiin ka gadoodsan tacadiye iyo dulmiye ay sheegeen inay u geysatay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Macallimiintan ayaa kor u hayay boodhar ay ku xadhan yihiin tacadiyada iyo dhibaatooyinka ay tirsanayaan, waxaanu halkudhiga mudaharaadku ahaa jooji tacadiga iyo kutumashada macallinka. Caqligu muu qaadi karayn, damiirka noolina wuu damqanayay markaad eegto dibindaabyada iyo diifta ka muuqatay. Macallimiinta waayeelka u badan ee godoodkooda qarsan kari waayey waqtiga oo cadceed daran ahaana dhididka u qubay si ay dareenkooda damqashada leh ula wadaagaan shacabkooda. Waxayna arrintani baal kale oo madow ka gashay tacadiyada xukuumadda Biixi ku haysa shacabkeeda. maalintii dadkaasi waxay ka yimaadaan tuulooyin bay ka yimaadaan qaarna waxay ka yimaadaan lul fog intaasoo bas baanu soo raacnaa. seminaarkaasi sidii u socday waa la jahawaabiyey. macallimiintaasi muddada inta ay marayaan wax lacag oo ay hayaan ma jirto. waa dad waaweyn oo xaas iyo cid walba la daweeyaan. maalintii marka hore hay'addu waxay ugu tala gashay hay'addu waa Mercy Group baa la yiraahdaa. Mercy Corp weeyaan. waxa loogu tala galay inuu macallinku qaato maalintii $15. marka $15 hagee ku dhacday? $15 waxay ku dhacday wasaaradda waxbarashada ayay ku dhacday. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada. wasaaradda waxbarashadu waxay sheegtay in laba macallimiin oo ay kala qaybsiin magaalada iyo miyiga. haddii kuwii miyiga la idinka lacag badiyay maadaama ay magaaladii joogay, maxaad u cabanaysaan? waxaanu u cabanaynaa annagu waxa weeyaan markii hore tababar waanu qabnaa. waxaanu nahay macallimiinta tababarka qabta. macallimiinta halkaa ku galaysa Sheekh Bashiirna waa macallimiin aan tababarnay weeyaan. way kala duwan oo laba baalmay kala yihiin. annagu tababarka hore aan u soo qaadanay. waxaanu nahay oo hay'adda noogu qabanaysa waa 6 iskuul oo kamid ah iskuulada ay gacanta ku hayso hay'adaas ay la shaqayso weeyaan. ma aha tababar kale oo waddanka oo dhan ka tirsan weeyaan. lacagtaasi waxay ahayd $15. maantana waxa lagu soo gabagabeeyay $1 baa lagu soo gabagabeeyay. waxaanu ku ogaanay inaan baa attendance-ka noo hayay oo nasiixi jiray oo aroortii haddaad maqnaato naga saxayay. inankaasi wuxuu noo sheegay haddaad maalin maqnaato inaad $15 ka go'ayaan. tababarkan noo bilaabmay wuxuu ahaa tababar ka duwan tababarka warbixintiisa haysaan. waxaan arkay dad saxaafadna weydiinayay kuwa tuulooyinka. annagu waanu ka duwanay macallimiinta 400 ee ku jirta Sheekh Bashiir. waxaanu nahay 45 macallin oo ku jira Faarax Omar oo hay'ad gaar oo magaceeda Mercy Corp ay gacanta ku haysay. waanu ka duwanay waxa weeyaan markii waxaanu nahay macallimiin loo soo xulay in ay seminar galaan tababarkan ay iyagu qabaan. waxaanu qaadanay horaan u qaadanay waxaan macallimiin tababaran baan anagu oo markaa waxaan ku oo shahaadooyinka ay qaadanaya. waxaanu ku rajaynaynay oo aanu rajaynaynay maalintii in la noo xisaabiyo lacagta uu muuri sheegay ee $15. hay'addu iyadu wax walba way nala ogashay. hay'addu wax walba way nala ogashay, laakiin cidda kaliya ee hor istaageen ugu horeeya waliba agaasimuhu waxa weeyaan ugu horeeyaan waliba agaasimuhu iyaga qorsheeyay wasaaradda waxbarashadu inay hor istaagaan macallimiintii waxa loogu tala galay. waayo su'aasha isweydiinta waxay tahay budgetka loogu tala galay macallimiinta hadday wasaaradda waxbarashadu qabanayso maxaa maalintii koowaad ee ugu horeysay loogu sheegi waayay. daawadayaal halkan waa afafka hore qasriga madaxtooyada Soomaaliland. waxay isugu soo baxay kumanaan ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga gobolka Muqdisho ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. waxay ka cabanayaan tacadiye ay sheegeen inay u geysatay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. waxa baxaya buuqooda sawaxankooda taasoo ay ku muujinayaan cabashadooda. sidoo kale waxay istaan dooran ay ku dhigtay halkudhigyo ay ku muujinayaan tacadiyada ay u geysatay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed